ciidanka booliska saldhigga degmada Afgoye iyo kuwa guutada koowaad ee daraawiishta booliska Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa maanta howlgal lagula dagaalamayay waxyaabaha maanka dooriya waxa ay ka fuliyeen waaxyaha Dhagaxtuur iyo 21 Oktoobar ee degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidanka daraawiishta booliska Soomaaliyeed iyo kuwa saldhigga degmada Afgoye ayaa maanta u dhacay guryo lagu farsameynayay waxyaabaha maanka dooriya calaqa hashiishka. Howlgalkan waxaa si wadajir ah u hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada Afgoye, abaanduulaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta booliska Soomaaliyeed, taliyaha booliska saldhigga degmada Afgoye, taliyaha ilaalada deegaanka iyo taliyaha howlgelinta. Ciidanka ayaa baaritaan ka sameeyay dhammaan goobihii bartilmaameedka u ahaa, iyagoona gacanta ku soo dhigay fuustooyin iyo jirgaamo ay ku jiraan calaqa iyo makiinado lagu farsameynayay, waxaana ugu dambeyn lagu soo bandhigay saldhigga booliska degmada Afgoye. Ciidanka ayaana dab qabadsiiyay bacyaha ku jira xashiishka iyagoona la daadiyay dhammaan calaqii ku jiray fuustooyinka ciidanka ay soo qabteen. Ugu horeyn ayaa waxaa howlgalkan faahfaahin ka bixiyay taliyaha booliska saldhigga degmada Afgoye, Gaashaanle Cali Rooble Cabdi. howlgalkii aan wadnay bariyahan waxaa lagu soo qabtay waxyaalahan aad arkaysiin warshadahan oo lagu sameynayay muqaadaraadka. caagadahan way dhaasanaayeen waaweynka jargeennadaas oo loo diyaarinayay. waa la qaadi waayey, bartoodaan ku daadinnay. xalay habeenimo ilaa 7 saac ilaa 8 saac ayaan ku jirray howlgalkaas. wixii qaadmaan waa soo qaadnay. saad arkaysiin xashiishka warshadii lagu sameynayay, dadkii lagu soo qabtay rag iyo dumar way isku jiraan, gacantaan ku haynaa. wixii kalan waa ku daba joognaa. jargeennadan arkaysiin 20 qalayaasha waa kuwa diyaarsan waaye, waadini gadgadaan ee diyaar u waay. sidoo kale howlgalkan waa socday saaki 12 saac u bilaabnay. hadda saacadan la joogo 19 saac ayaan ka soo ruuxnay. waxna waa soo qabanay, wixii kalan kale waa ku daba jirnaa. intaana waxaan noo sahlay Ilaahay ka soko dadweynihii degmada oo nala shaqeeyay, formashiinadan na siiyay, wada shaqeyntii ka dhaxaysay shacabkii iyo booliska. howlgalkaas looma kala harin. saldhigga booliska, maamulka degmada, dowladda hoose, daraawiishta habeenii maalin waa la wada taagnaay. sida wada jira ayaa loo waday howshaas. haddana inta hadda ka soo laabatay inta kale hadda magaalada ku wada maqan yihiin. habeenii maalin saacad walba saas howlgalku socon doona hadduu Ilaahay yiraahdo. ma laga istaagi doono ilaa laga soo ciribtirayo. abaanduulaha guutada koowaad ee ciidanka daraawiishta booliska Soomaaliyeed, Gaashaanle Abuukar Cabdulle Raage Garmaqaate, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay howlgalkan maanta ay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya. waa arkaysiin waxa meeshaas yaallo oo fuustooyinkaas iyo jirkaamankaas oo ay ka buuxaan calaqi iyo warshadihii lagu karihayay iyo xashiishkaas. xalay ayaa howlgal lagu soo qabtay iyo dad dumar iyo rag isugu jira, iyaguna way joogaan, waana la arki doonaa. qaarkoodna hadda ay meesha fadhiyaan. howlgalkaas saa lagu jiraa, waana sii wadi doonnaa haddii Ilaahay idmo. waana loo istaagay, looma kala hirin. maamul iyo amni iyo ciidan iyo dhammaan iyo shacab waa la wada shaqeeya. insha Allah haddii Ilaahay idmo waa ku sii dari doonaa, mana joojin doonaa haddii Ilaahay idmo. ugu dambeyn, Mahdi Cabdi Xasan, gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada Afgoye ahna kusimaha gudoomiyaha degmada, ayaa dhankiisa ka mahadceliyay howlgalka maanta ay sameeyeen ciidanka daraawiishta booliska Soomaaliyeed iyo kuwa saldhigga degmada Afgoye, isagoona sheegay in la joogteyn doono howlgalkan. madii suurageliyay in howlgalkaas u jeedaan suurtageliyay in lagu guuleysto ama hadda labaad iskale. waxaan mar kale u sii mahad celinayaa dhammaan ciidamada saldhigga daraawiishta intii ka qayb qaadatay howshaas oo ilaa xalay ilaa iyo saaka. taliyaha ilaalada deegaanka, ciidankii dowladda hoose xataa waa ka qayb galay howlgalkaas. waxaana lagu soo qabqabtay maxaabiis dhowr ah oo rag iyo dumar isugu jiro. kolley wixii faahfaahin ee saraakiisha ciidamada ka hadashay, wixii arrimo ciidan ee ciidankan u deynaynaa. nidaamkii iyo baaritaankii iyo wixii muqaadaraadkaas khuseeyay ciidamada ka mas'uul ah. annaga kaliya maamulka degmada waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ciidamada
ka howlgalay hawshaas oo habeen iyo maalin u taagan magaaladan amnigeeda. Magaalada waxaa ku soo kordhay iyamahan dambe afduubayaal inta badan ciidanka way ku guuleysteen. Raggii qaar gacanta lagu hayaa intooda badan gacanta lagu dhigay. Wixii baaritaankii arrimihiisii ku saabsanaayeen waxaan ka sugaynaa laamaha booliska. waxaan mar kale oo saddexaad u sii mahad celinayaa ciidanka booliska hawsha sharafta leh ee degmada u hayaan. waana mahadsanyihiin.